goor ay isa soo tarayaan baaqyada loo jeedinayo colaadda ka aloosan dhulka Falastiin ee la haysta iyo aaga masjidka barakeysan ee Aqsa ayaa dowladda Turkiga ay ku dhawaaqday go'aan lama filaan ah oo ay ciidamo ugu dirayso Israa'iil si ay uga difaacdo aaga barakeysan ee Aqsa iyo Falastiiniyiinta. Go'aankan ayaa soo baxay xilli ay xaaladda qarartay oo ay Xamaas badisay gantaalada ay ku garaacayaan magaalooyinka Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniyiinta oo iyana gantaalo la dhacaya magaalooyinka Israa'iil qaarkood si ay uga argutaan dhibaatooyinkii la gaarsiiyay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mawlid Jawish Oglu ayaa waxa uu ku dhawaaqay Arbacadii shalayta ahayd in uu Turkiga go'aansaday inuu muujiyo awoodiisa una diro ciidamo Falastiin. Wasiirka ayaa yiri digniinihii aan diraynay waxba maanay tarin, waana khasab inaan dhulka ka dhaqaaqno sababtoo ah argagixisada Israa'iil haddii aanay dhib badan dareemin waligoodba waa ay wadi doonaan axmaqnimada. taas darteed ayaan dhib badan dareensiin doonaa argagixisada Israa'iil, ayuu leeyahay wasiirka oo hadalkiisa sii wada. waxa uuna intaas ku daray dowlado Islaam ah oo waaweyn oo go'aankooda uu saameyn yeelan lahaa ayaa qadiyadda Falastiin iska ilaaway cabsi ay ka qabaan Mareykanka aawadeed. Innaga miyaa Qudus u ilaawi karno sida kuwaas oo kale? Awoodda Turkiga ma ahan kaliya mid lagu difaacayo Turkiga magaalooyinkiisa ee waxaa lagu difaacayaa ummadda Islaamka ah iyo guud ahaan cid kastoo ku dulman dunidan guudkeeda. waxaynu nahay codka kuwa dulman, mana jirto cid kale oo inoo dhiganta taasoo codka xaqa ah kor u sheegi karta. ma marka aad dhimataan kadib ayaad xaqa sheegi doontaan? ma cabsi darteed ayaan maalin kasta u dhimanaynaa? maya, ayuu leeyahay wasiirka oo isu jawaabay. aadanaha hal mar ayay nafta ka baxdaa, taasina waa shayga aan aaminsanahay caqiida ahaan. taasina waxaaba ka sii daran hadduu Turkiga aamuso, yaa kaloo u hadlaya Qudus. haddii aanan inagu u dhaqaaqin, yaa kale oo u dhaqaaqaya qadiyadda Qudus. haddii aanan garabkooda istaagin walaalaheena Falastiin ee Qudus, yaa kale oo garab istaag u muujinaya. yaad idanku ugu kalsooni badan tihiin wadamada gobolka? hadda ka hor xilligii uu nidaamka Sahanuuniyiinta uu dili jiray 60 ka mid ah walaalaheena Falastiiniyiinta, waxaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay u gudbinay qaraar lagu cambaarayn lahaa, laakiin waxaa codka veto ku diiday dalka Mareykanka. cid kale oo maalinkaas sida Turkiga u soo baxday maanay jirin, marka laga reebo walaalaha Yemen oo aad ogtihiin dhibaatada ay ku sugan yihiin. iyagoo xaalkaasi ku sugan ayay haddana iska ilaawi waayeen qadiyadda walaalahooda Falastiin. sidana ku dayn mayno Israa'iil, waa inay dhibta dareentaa oo ay dhadhamisaa. waxaynu la xidhiidhnay madaxda in ka badan 50 dal, ururo iyo hay'ado caalami ah. wadamada caalamka idilkoodu waynu la xidhiidhi doonaa. hadda waxaa la joogaa xilligii ay Israa'iil wax badan bixin lahayd sifa looga jaro wixii ay geysatay. talaabada koowaadna waxaynu qaadanay go'aan wada saameynaya dowladaha Islaamka guud ahaan si aynu u xaqiijino amniga reer Falastiin. hadda kadibna Israa'iil tabar iyo taaqad uma heli doonto inay Falastiin ka yeelato sida ay doonto. hadalka wasiirka ayaana intaas ku dhan. adigu maxay kula tahay? fikirkaaga hoos inoogu reeb.